السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي ولا لها شرفت له maalin dhoweed waxaan soo dhigay arrintii ugu dhacday ee jirrada ahayd. Marka su'aalo badan ayaa layga soo weydiiyey, aad u fara badan. Runtii aad iyo aadan ugu faraxsanahay in dadku ay ku baraarugaan dadkeennu ay ku baraarugaan halista jirta. Anigana markii waxaan u soo gudbinayay laba ujeeddo baan ka lahaa. Mid waxay ahayd dadkaygii iyo asxaabtaydii aan xiriirka lahayn way waayeen, message-yaa la ii soo diray, waa la ii soo raadiyey, waa la ii soo wacay. Marka intaasoo dhan kama wada gaaro dadka xataa qaraabada dadaan war iga haynin, sababtoo taleefankii ma la qabanayo. Taleefankii wuu iska dhacayaa, aniga ma ka jawaabi karo ama maba ogiba inuu dhacayo in kale. iyo asxaabtaydii dadkii aan la xiriiri jiray minkii maxaa ku dhaca, qof wal su'aalo isweydiiya. marka saas ayaan isdhahayay, oo dadkaagii cudurdaar uga bix, xaaladana u sheeg sidaa noqotay inay wax si ka ahaayeen. iyo maadaama aan arka bahalkan halista uu leeyahay, anugu cudurka inkastoon caafimaadka waan garanaa, waan ka shaqeeyaa, laakiin maadadan cudurkan waa arkay, laakiin wax weyn kama soo qaadi jirin. waxaan is dhihi jiray waa sida kaneecada iyo sida wax iska kaa macnaha xayawaan maan ka raysanay, laakiin ma ahan. sababtoo ah markii aan jiraday oon cudurro badan isbitaalka liiga baaray, oon idhi waxaas malaria inaan qaban aan ka cabsanaa, maadooyinkaasaan ka cabsanaa, waxaasaan ka cabsanaa, oo liiga waayey, oo la yidhi tana lagaa baaraa. aniga hataa tana laga baara ma dhihin. markii lagaa baara maxaa yidhi waa macquul, ilaa anugu siday xanuunkeeda ma aqaan. waliba waa lagaa helay. waxaan ogaaday xanuunkan marka ugu bilowday waan la socday. marka aan ka shakisana inuu bahalka ay soo qaniinana waan ka shakisana. marka intaas ka bacdi taleefon iyo inaan wax akhriyo iyo ma aanan awoodin. bal horta cudurkan aan is iraado akhri sida uu yahay. marka hadda waxaan akhriyey oon fiiriyey, oo hadda xoogaa caafimaad saa'ida aan dareemay wixii ka dambeeyey bisha 20-keedii, bisha hadda dhammaanaysa maanta 20-keedii, adiga asbuuc gudahooda wax meelahaas ayaan soo fiicnaadan wax akhri karin. awal wax ma akhri karin ilaa bishii hore iyo bishaan waxba ma akhri karin. madax xanuun, indhaha waa dhibay ahayd. marka birisiis macnaha sidii uu ii qabtay oo cudurkan uu igu dhacay ayaa calaamadihiisa dhan ahaayeen halis. sida lagu qabanayo, sida noqonaysid, madax xanuunka, lalabada, neefta, caloosha. waxa waaye meesha uu ka abaarayo waxaa weeyaan maskaxda. waa maskaxda ayuu ka ataagaa, neerfada, maskaxda neerfadeeda. adduunkan jirkanaga waxa dhaqdhaqaajiya iyo waxa maamula iyo waxa kale system kale hagaajiya, wadnaha booda iyo dhiigga rogmaya, waxa kontaroolaya wax walba neerfada iyo maadooyinka jirka ka shaqaysiiya waa maskaxda. maskaxda waa mashiinka, hadday kaa istaagtana wax kasta waa istaagayaan. marka madaxu ka ataagaa, madaxu iga ataagay, madaxu iga weeraray. madaxii markuu iga weeraray, oo cudurka asaga markuu geedkaana ku qaniino, bahalkaana ku qaniino, iyo qof walba wuxuu rabaa ugu yeeray. magacyo badan ayaa loogu yeeray. aniga magac uma aqaan geedkan, magac uma aqaan. waa bahal wax ku cunayo, wixii ku cunaa waa bahal. laakiin aniga waxaan is iri bahalkaanu waxaa waa shilin, waa shilin. qofkii yaqaan baa yaqaan. waa nooc ka mida shilinta. shilintu hadda waa dhowr nooc, waa tiro intaasoo nooc waa, laakiin waa un qayb ka mida shilinta. marka waxaan
الله المستعان. marka halistii waayo waxaan ka hadlaynaa weli markuu kugu dhaco shilinta markay ku qaniinto laba cudur kugu dhaca. laba cudur laga qaadi karaa. waa anigu ma aqaan waxaan afafkooda inta af walbaba wuxuu ku leeyahay cilmiyan marka loo yiraahdo magac ayuu ku leeyahay. aniga wadankan aan joogo magac ayuu leeyahay. af Soomaali ma garanayaan wax lagu yiraahdo. magaciisana inaad garata ma aha. wax hadda macnaha ku sameynaysa ma laha. laakiin markuu kugu dhaco laba cudur aad ka qaadaysa. aniga markaan si toos ah cilmiyan hoos aan u aaday waxa weeyaan waa mid bacteria noqonaya oo laga yaabo meesha ka qaniinay inuu ku fashfasho iyo waxaas iyo mid virus kugu noqonayo. marka qofku cilmiga markaad virus iyo bacteria waa labada cudur oo dadka macnaha dadka ku dhaca wax infection ku rida. laakiin bacteria markuu yahay cudurku markuu yahay uu ka bilowdo bacteria waa la daweey karaa. laakiin marka uu virus yahay lama daweey karo. marka aniga midkaan ugu dhacay waa midkii viruska ah oo la daweey karin. waana midka halista oo maskaxda dilay. maskaxdu ka dilaya. maskaxda ayuu horta maskaxda xanuun iyo wareer iyo madax xanuun neerfadu dila. maskaxda markuu ka dilo xeelo badan ku dhici kara. systemkaaga dhan qaldami kara. kaliyaha ku istaagi kara. aniga hadda waxyaalahan isku arkay calaamadaha isku arkay waxa kamid ah intii 10 beri marka xanuunku igu darnaay musqul ma gelin taadi xataa iga imaameen wax walba waa ii soo ureen. wax walba ma ii dhadhamayaan. wax ma dhadhamin karo biyo warkooda. wax ma ogi maskaxdii waan wareerayaa. hadalkii waa iga qaldan. marka waxaas u sameynaya wax lagu dhadhanka lagu dareemo wax lagu dhadhansado waa maskaxda. wax walba waxa kala qaybiya oo dadka macnaha jirkaan ilaahay awoodiisa lagu maamulo waa maskaxda. maskaxda hadday ka dhimato waa finish ku dhamaatay. marka aniga hadda marka ugu dhacay waa midkaas bacteriyada oo qatarta oo loo dhintay. aniga intaan meesha hadda joogay dadaa ku dhintay. meesha aniga aan ku dhintay meesha aniga hadda aan joogay meesha hadda aan joogo ku jiray dadaa ku dhintay oo cudurkan aniga bahalkan cunay oo soo cunay oo kale. subxaanallah. runtii walaalayaal alxamdulillaah ilaahay baan ku shukrinaya. waxaan idin sheegayaa waxa aan arkay wax halis yahay. halistaas inaan idinkaga digo ayaan rabaa. maxaa yeelay jirkaygii wax weyn baa ku dhacay. wax isbedel weyn ayaa ku dhacay. shock ayaa ku dhacay. ilaa hadda ayaan dareemayaa. ilaa hadda jirkaygu ma ahan sidii hore. candhuuftayda xataa sidii uma soo dhadhamayso. calooshaydu sidii hore uma shaqaynayso. marka hadda waxaan is iri aniga dhan mashiin cusub maa la ii mariyey. jirkayga dhabarkii wixii dhaqdhaqaaqay qaab ahaan waxaan dareemaa jirkayga shock weyn ayaa ku dhacay. marka shockaas waxaan rajaynayaa inuu caafimaad ii noqdo oon ka helo awood kale. sababtoo ma aanan dhiman. haddii ma aanan dhiman oo laga yaabo sababtoo 5 beri aan waxba aanan ogeyn oo wax kale aan kala ogeyn waxba aanan ogeyn 5taas beri maxagee loo dhigaa ma dhinacaana loo dhigaa mise dhinaca. marka ilaahay awoodiis ayaa horta wax walba ku kala socdaan. ilaahay nagu badbaadiyey. laakiin arrin shoog ayay ahayd. arrin aad u weyn ahayd. arrin khatar ayay ahayd. arrin dad yaryar u dhimanayaan waa dhalinyaro. waa arrin loo dhinto. waa arrin sariiraha loo fuulaa hadduu ku mudo cudurkan kugu dhaco. hadda maanta dhakhtarku isoo wacay oo maanta ayaa aniga la ifasaxay. maanta aniga isbitaalku ifasaxay.
أول أيها قعنتودن ku jiray ilaa fasax macna inay ila xariiraan waxa saanahay inay la socdaan xaaladii dhakhtarka waa weydiiyey wuxuu yiri nasiib aad leedahay nasiib ayaad leedahay dada waxa yiri waxayna la joogaan yiri 6 bilood dada waxayna la joogaan sanad oo meesha nada jiif dada wuxuu yiri dhakhtar kale ayaa loo yeelaa markii uu soo raysto kaasoo bara sida loo socdo hadalka macnaha dhakhtar kale oo qofka inuu mar dambe soo dhaqaaqo midka hadalka midka socodka taas hor adiga nasiib aad leedahay niyo wax si qatar oo intensive wax walba aad ku marto yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun alxamdulillah allahu akbar wallahi wuxuu yiri waxaad wax ku martay si ilbiriqs ayaad ku martay marka walaalayaal Soomaali waxaan idinku macnaha baraarujinayaa in iska talaashan geedkan cudurkan in iska talaashan aniga maanta waa lii soo bishaareeyay dhakhtarka waa ii bishaareeyay waxaan iri أنا وضن كان هو سجتها هاري اختاروا حاول يدي سؤالا كويدين أمر كودا بي وحم حاجة العذر مركا كوكود عان قفك تركيس أو قادنا أيو دفاع أو عذر كان مردم بوس كوداي زي وقتين هاري عذر كانوا مردم ما يقول دعاء معناها دفاع ملاي ها هو يري ليف سلونج إلا نلاش هذا إلهي قدرتي سيدي إلهي كدغو لكن وحو يري ساس وين عذر كان مردم ما كوكو دعايو هدو كو قنينه بحال كانوا ما كوكو دعايو وسيدا اللي قالي لكن عذر كلو بكتيريا ده عذر كلو بكتيريا بحال كانوا أو سيدو وايقو دعي كرام اسكو شغل ما كان هاليسا كان بكتيريا سيدي دبا لا ما طلع لي كرو معناها مركز ويده واحد دوي كرو هذا دواء وثلاثة لكن دواء الله هلا ولا دوي كرا أيضا وإنفكشن لكن كان في فيروس كما عرف أو فيروس حريرة واحد معناها واحد دوي كرا ما مركز ولا عليال صاحب بدأي أصحابتي إذا هذا الكويد كبديي أنا هو عافمات قبا الحمد لله هذا أيانو في عناي هذه أيانو في عناي إلهيان وما هاد نقيا مرضا بعافمات iyo isiyay marka la caafimaad isiyay inaan dunida ku noolaado aan ku caafimaad qabo anoo socod kara anoo hadli kara insha Allah ta'ala mardhow quraankaygii iyo quraankanagi iyo wixii aan quraankanagi aan bilaabanayna xaasdahay badana ma hadlo inta badan oo xireenan qorqoro ma ogin meelaas laakiin waxa waaye aan rajaynayaa in aan bilaabo awoodii iyo dhaqaaqii iyo annaga iyo maskaxdii noo soo fiicnaatay oo dib fiican u soo noqonay marka waxaan kula talinaa arintaas halista in maaragtay laga taxadaro marka qof walba wadanka uu joogo طبعا مقع يولي هي ودمضان يوروبيانكا واسكو ذا بدن يسيبه اسكندنافيانكا ومعناها كدوحة دالكا ناقي واجوك تاشيلين ودادك حتى واعنتا لكن ويكالها ميالوه ويكالها ليس بدنيهين لكن قف والبا معناها هاوي ديو بقترك هاوي ديو لكن ودمضان يوروبكا وسيبه اسكندنافيانكا سيبه سويدن سيبه مقالة جوجو iyo gobolka aan deganahay oo meesha ugu badan yahay oo halistiisu ay ka buuxdo marka dadka jooga meeshan aan joogo ama aagaas ama u dhow ama duurka u dhow ama geedaha meelaha u dhow degan hal iska daweey hal iska talaalo baalkan talaalo leeyahay marka silac ilaahu noo dilin ilaahu caafimaad nasiib ilaahu naga xijaab waxa aad abuurtay oo afka badan waa idin salaamay
السلام عليكم ورحمة الله.